العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم maanta oo taariikhdu tahay 25 bisha January waxa shir isugu yimid guddiga amniga ee gobolka Mudug waxa laga hadlay arrimo badan oo ku saabsan nabadgelyada guud ahaan gobolka gaar ahaan degmada Gaalkacyo waxa ka soo baxday awaamiir iyo waajibaadyo la isfaray degma ahaan inta naga khusaysa waxay ahaayeen afar qodob afarta qodob waxa weeye guddiga amnigu wuxuu isku raacay in gaadiidka dadweynaha oo lagu rarayo wadada weyn dhinacyadeeda la mamnuucay laga bilaabo 25 bisha maanta ah waxa dawladdu Puntland ay go'aansatay heer gobol iyo heer degmaba inaan lagu rari karin gaadiidka dadweynaha wadada hareeraheeda baabuurta aadaysa degmooyinka iyo gobolada kale Puntland astaamo gaar ah loo asteeyay gaari walba in astaankiisii la geeyo oo halka laga raro ayaa guddigu isku raacay oo la go'aamiyay waxa kale oo guddigu go'aamiyay dadka ganacsatada ah oo degmada Gaalkacyo in la sameeyo suuqii Xerdayax halkaas oo isugu jirta dahable khudaarley firshooley iyo bakhaarley intaba waxa la farayaa dhammaan dadweynaha ku ganacsanaya wadada hareeraheeda iyo goobaha aan munaasabka ahayn inay ku xaroodaan goobihii loo asteeyay 26 bisha qofkii loogu yimaado isagoo ku ganacsanaya goob aan munaasib ahayn ama meherad gudaheed ahayn waxa laga qaadayaa tilaabo waafaqsan sharciga waxa la farayaa marka ganacsatada wadatooyinka gaari gacamada dhabarka kuwa wax ku raranaya iyo dadka kabaha tolay aan birta sameynaya qolo walba meeshii loo asteeyay oo dawladdu ay ugu tala gashay inay ku xaroodaan waxa nasiib darro ah guriyo qaali ah lacag badan ku kacday iyo suuq muhiim ah waaweyn inay faaruq yihiin wadooyinkiina meel laga mara ay laadahay oo gaariga dabdamiska meel uu mara uusan jirin dadkii kale suuqa ka dukaamaysan jiray aysan jirin waxa la farayaa marka dadkaas 26 bisha in qof walba goobtii suuqa ahayd loogu tala galay oo dawladdu u asteysay inay tagto qodobka saddexaad waxa weeye wadooyinka nasiib darro waxa magaalada Gaalkacyo in shaqo badan dawladihii ka horeeyay dawladdan ay ka qabteen wadooyin muhiim ah la furay haatan waxa way ay wada xiran yihiin intooda badan dadka guryaha dhisanaya agabka ka soo hara dhismaha oo ciidda iyo dhagaxa isugu jirta in qof walba uu ka qaato wadada bartankeeda wadooyinkaas la baneeyo dadka ku ganacsanaya isla meelahaas oo meheradaha aan munaasabka ahayn oo buushashka isugu jira sandaqadaha iyagana waxa la farayaa in muddo 2 week ah ay buushashkoodaas iyo ku dunsadaan sandaqadoodaas labada week oo ka bilaabanaysa maanta markay dhamaato waxa la rabaa hadii la haydmo inay baneeyaan oo wax aan loogu imaan waxa kale oo la farayaa dadka xayeysiisyada tabeelayaasha ah taaganaya tabeela aysan ogolaan dawladda hoose degmada Gaalkacyo inaan la taagi karin kuwa hadda taagan oo muddadooda dhamaatayna la fujin doono lama aqbali doono in tabeelle aysan dawladdu ogeyn laga taago magaalada Gaalkacyo gudaheeda ama guud ahaan degmada aad iyo aad waa mahadsantihiin intii kaleeto oo amniga khusaysayna gudoomiyaha gobolka iyo taliyaha qaybta ka hadlay laakiin degmada Gaalkacyo afarta qodob baa quseeya iyadoo qoraal ahna waxaan ku baahin doonaa baraha bulshada iyo muxuu ahay toole goobaha kale ku haboon aad iyo aad waa mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.